waxaan bogaadinayaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinayaa ardayda ku guuleysatay inay ka mid noqoto kaalmaha hore aynu galabta abaal marinayno. waxaan leenahay Allah idin barakeeyo, Allah quraanka idinku xafdiyo, Allah kuwa halka ka sii wada dadaalkooda iyo waqtigooda galiya Allah idinka yeero. waxaan iyagana waxaan balyeelayaa waalidiinta ku tacabtay ardayda ee u suurageliya Ilaahay ka sukow inay quraankii kariimka ay xafdiyaan. waalidiintaan iyagana waa u balyeelayaa. waxaan mar labaad dhiirigelinayaa culimada dacwada hadday tahay guddiga guud ee dacwada uu guddoomiyaha Sheekh Daahir, culimada guud ee deegaanka iyo jamciyada Al-Nuur iyo dhammaan madarasadaha ka shaqeeya quraanka kariimka iyo barashadiisa. mar labaad iyo mar saddexaad waa bogaadinaynaa, waa dhiirigelinaynaa. wax laga shaqeeyo waxa ugu khayrka badan waa kitaabka quraanka. sida Soomaaliya caanka kaga nahay dadka deegaanada dega waqooyi bari ama reer Laascaanood waxay kaalmaha hore mar walba ka galaan diinta islaamka hadday tahay xifdiga kitaabka quraanka kariimka iyo hadday tahay axaadiista iyo kitaabka. marka waxaan leeyahay arrinta Ilaahay ku sugo waxay noo suuro geliyay culimada. mar labaad iyo mar saddexaad waa culimadeena waa dhiirigelinaynaa, waana bogaadinaynaa. ka maamul ahaan, ka caasimad ahaan waa waajibna saaran inaanu ka shaqayno arrimaha diinta. noloshu halka ay ka bilaabato ayna ku dhammaanayso waa diinta islaamka ee xaqiiqada ah. sidaa awgeed annagu intii karaamkayaga ah waxaanu ballan qaadanaa inaanu dhinaca taagnaano, garab taagnaano sidii loo baran lahaa qur-aanka, sidii madaaristu hagaagi lahayd, sidii ay u heli lahaayeen inay awood u yeeshaan culimadu iyo macallimiinta qur-aanku inay ardayda ay wax baraan tuta iyo qur-aanka kariimkaada. baanu ku dhinac taaganahay haddaanu maamulka caasimadda. intii aanu hore uga qabanayna waa waajibna saarnay, haddana diyaar baanu u nahay. mar labaad iyo mar saddexaad baa waanu mahad celinaynaa culimadeena sharafta leh, waanu u ducaynaynaa. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa, waxaynu ku jirnaa ayaamihii ugu dambeeyey ee Ramadaan, waxaynu joognaa xilliyada ducada la aqbalo, baynu ku jirnaa saacadaynu hadda joogno. waxaynu u fadhinaa madal qiimo badan oo ah inaynu abaal marinayno oo dhiirigelinayno arday aynu ku abaal